بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo haboon akhyaare halkan imika adiga daawanaysan waa channelka Shahid TV ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Soomaalida gaar ahaan muuqaal wareedkana waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa kuna faahfaahin doonaa Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalkaasi Iran oo soo saartay gantaal plastic ah oo la tirsan kara gantaalada Mareykanku soo saaray Emirates ee dhawaan la geeyay Jamhuuriyadda dalkaasi Ukraine ee si baan wax uga bedelay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Jamhuuriyadda Ukraine oo gaaray bishii 6 qodobkaas ama qashan oo inta hore ka faahfaahsan imkaan ku soo dhawaada wararka naga soo gaaraya dalkaasi Iran ayaa waxay sheegayaan Iran inay tijaabisay gantaalkeeda nooca loo yaqaan Fat 360 ee gantaalaha balaastika ah ee dagaalmeedka laga hago intii lagu guda jiray dowladtuskii military ee fighter 1401 fighter ayaa 360 wuxuu la mid yahay gantaalada Mareykanku soo saaray ee Emirates ee Mareykanku sameeyo oo si guul ah loo geeyay Jamhuuriyadda Ukraine ugu yaraan waraaq la soo saaray ayaa waxa lagu sheegay Fat 360 qiyaastii in uu yahay mid miisaan fudud oo ogolaanaya in gantaalo badan lagu rakibo oo soo saaro sida lagu sheegay warbixinta gaarka ah ee Jamhuuriyadda Iran ay soo saartay gaar ahaan waxa la ka saari karaa gaari xamuul ah Fat 360 waa xubin kamid ah oo ka tirsan qoyska Fat Ballistic Missiles ee Jamhuuriyadda Iran soo saarto ilaa 4 ayaa lagu sheegay ama laba wareeg kaas oo sameyn kara oo ridada ah baa lagu yiri sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay Jamhuuriyadda dalkaasi Iran dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay wacadna ku maray in uu sa joojin doonin weerarka dhanka dalka Ruushka intii uu khudbadiisa ku guda jiray Zelensky wuxuu intaasi ku daray in uu fulinayo xoreynta magaalooyin badan oo kamid ah Jamhuuriyadda dalkaasi Ukraine oo ay ku jiraan buu yiri kuwa Crimea la xoreyn doona dhanka kale madaxa shaqaalaha difaaca UK ayaa sheegay in uu Putin ku guuldaraystay dhammaan ujeedooyinkiisii istaraatiijiyadeed ee u galay dalkaasi Ukraine dhanka kale generaal kale oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay Kiev iyo reer galbeedku in ay ka foojignaadaan sida uu Ruushku uga falcelin doono wararkaas kadib dhinacyadii ugu dambeeyay ee Ruushka uu soo saaray dhanka kale waxa la sheegay Ruushku ilaa 120 qof inuu ku dilay magaalada Kherson dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr Biden ayaa Putin ugu baaqay inuu sa adeegsanin nuclearka hadii uu adeegsanada dagaalka Ukraine inuu isku bedeli doono mid nooc kale adduunyada dhan ay ku soo fiirin doonto Putin wuxuuna noqday buu yiri Putin imika mid dhiiga bilaadanka ku qubaysta hadii haytaa markii ugu horeysay soo baqato channelkan fadlan subscribe oo gamleelka taabo wixii kale ka soo cusboonaada muuqaaladeeda kale ayaad ku daawan doontaan channelka subscribe saar oo nala joog aad baad u mahadsantahay